tababarkan uu ku aadanaa wareegyada kala duwan ee doorashada habdaboolka warbaahineed ee doorashada anshaxa iyo shuruucda doorashada iyo doorka warbaahinta islamarkaasina ay casharo ka bixinayeen khabiiro aqoon durugsan u leh arrimaha doorashada iyo ka qaybgalka warbaahinta ayaa waxaa furay agaasinka waaxda diyaarinta baahinta xogta warbaahineed ee xafiiska warfaafinta dowladda deegaanka Soomaalida mudane Abdeeq Maxamed Yuusuf waxaana hadaladiisa ka mid ahaa ujeedada iyo nuxurka ugu muhiimsan ee tababarkan maanta wuxuu la xidhiidhaa sidii bahda warbaahintu kuwa dawladda iyo kuwa barayfatku intuba ay faham ugu yeelan lahaayeen xilka iyo waajibaadka ka saaran sidii doorasho xor iyo xalaal ah ay dalka iyo deegaankeena bay uga dhici lahayd marka maadaama xilligii campaign-ka la galayo cycle kala duwan ay doorashada marayso dhan waxa la rabaa wariyaashu inay faham u yeeshaan shaqooyinka ay tahay inay qabtaan shuruucda dalka iyo deegaankaba shuruucda dalka ay soo saareen golaha doorashooyinka iyo laga bilaabo dastuurka bayaanada kala duwan ee golaha baarlamaanka federaalku ansixiyeen ee la xidhiidha xagga xorriyadda qowlka iyo hadalka iyo xorriyadda saxaafadda iyo mataqaanaa shuruucda boordiga waxa oo dhanba waxa la rabaa inaad faham u yeelataan isla markaana si habboon aad uga soo baxdaan xilka iyo waajibaadkeedii kaga aadan in shacabkeena xogta saxda ah ee loo baahan yahay inaad gaarsiin doontaan tababarkan oo muddo 2 cisho ah socon doona ayaa la filayaa inay wariyaashu ka heli doonaan khibrad iyo gashi wanaagsan oo ay doorashada lixaad ee dalka ka dhici doonta ay uga qayb qaataan